wixii Somaliland dhinaceeda laga waday oo anigu aan dhexdaasaan lahaa Soomaalidu dhan waxay isku raacsan tahay Somaliland la burburiyo waxaad moodaa tii laftarkeedii baa Puntland ku bilaabantay oo la lahaa awdal hal la xoreeyay iyadoo raggii awdal dhooban yihiin oo sidoodii u joogaan oo iyagu xukumaan oo horta waa sheeko waaliye wey weliba nin dhulbahantaa inuu kelmaddaa yidhaahdo dhulbahantuu waxa in badan lahaayeen ilaa haddii alla ka dhigayo nin odayo wax badan og baan ahaydo oday Soomaaliya xogaal waa siyaasadda Soomaalida iyo taariikhdaba oge wax badan bay lahaayeen nimankaa ma jirteen waa xoreyn waayeen waa noo dagaalami waayeen waa haddii alla ka dhigayo noo ciidma waayeen markii kaliya u hiiliseen horta hiilkiina wuxuu dhalay arrinkan uu dhalay marka dhinaca laga fiiriyo hadda uu ka hadlay ninka la yiraahdo timcadde laakiin xaqiiqda kale iyaduna meesha taallaa waxa weeye dhulkan la leeyahay horta maamul baa laga samaynaya oo sool iyo sanaag baa la yidhaahdaa waa xaggee maalin walba halkan aanu iska dhegaysanaayo dee annagu had iyo jeer arkayga waxaanu ku jaangoynaa Somaliland iyo dawladnimo iyo afkaan qabyaaladda iyo halkan reerkaygu degan yahay iyo dhaankayaga bari mari jiray iyo arrimahayagu noocaas badanaa maaha laakiin meesha la leeyahay hadda waxaa laga samaynayaa maamul goboleed waa sool waa tuma sool gobolka sool la yidhaahdo wax magaalaa ama city ama xataa town u qalma laba magaalaa ku yaal waa Laascaanood iyo Caynaba wey waxa soo raaca waa magaalooyin ama tuulooyin yaryar oo qabaayilku samaysteen oo haddii alla ka dhigayo dhaqanka Soomaalida ninku geedka oo shaaha ku hoos kariyo ayuu haddii alla ka dhigayo intuu magaciisa u bixiyay yidhaahdaa tuuli Heblaay wax noocaasa baa uu heliyey laakiin marka dhinaca Soomaaliyaba laga soo fiiriyey iyo xilligii kacaankii uu meesha joogay carrada Soomaaliya xukumayay degmooyinkii uu sameeyay kasoo anigu aan shaqsiyan aqoonsanayn waayo dawlad rasmiga kacaanku ma ahayn oo wuxuu ahaa nidaam afkambi dalka ku qabsaday laakiin haddana degmooyinkaas oo Xudun iyo Taleex iyo Buuhoodle iyo haddii arrimaha Taleex Xudun Laascaanood iyo Caynaba nimankaa dhulbahante waxay gaar u leeyihiin ciddii kale Soomaali kale ku wehelisaba saab aanu ku wehelin waa Taleex Laascaanood waa labada degmo kaliya wey halka haddii alla ka dhigayo meesha la yidhaahdo Xudun meelaan waxba u jirin suldaankan idinla hadlaya geelisa daaqaya oo bohol oo magaalada la yidhaahdo Xudun aan waxba u jirin dee beesha iyadu degan tahay oo haddii alla ka dhigo deegaan oo magaalooyin waaweyn oo xaqiran oo boholsaas ka mid tahay degmada Xudun dhulka kunto deganna Caynabada dee hadalkeedaba daa waa ogtihiin haddii alla ka dhigayo xildhibaanada ugu badan ee gobolka Sool dhulbahanta oo dhan oo isdiiwaan geliyey aqlabiyadiisa doorashadii 22kii ka dhacday Soomaaliland waxa kaga xildhibaana batay degmada Caynaba markii lagu tartamay xaqiiqduna waxa weeye haddii alla ka dhigayo dee waa sida loogu dhaqan yahay meesha ayaa haddii alla ka dhigayo lagu kala kuraas badanay Buuhoodle ayaa had iyo jeeraale dadka Soomaalidu ay iyada laftarkeeda arrinteeda khalad fahmeen Buuhoodle waa degmo saaran xuduudda Somaliland iyo Ethiopia Soomaaliya iyo Ethiopia degmada Buuhoodle 1960kii markii 9kii sanadood ee militariga ka horreeyay xildhibaanada laga soo doortay oo ka soo baxay xildhibaan dhulcun oo haddii alla ka dhigayo ayaa ka mid ahaa xildhibaanada ka soo baxay oo Salabaan Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland ilmaadeer yihiin oo mas'uulnimada habar jeclaada ka mid ah deegaanada ay magaaladaasi xukunto ama degmadaasi xukunto beeshaan la yiraahdo habar jeclo dhul badan bay degan yihiin waana kuwa haddaba isku hor fadhiya ee haddii alla ka dhigayo agaga taqaana dagaalada ugu baahan dhaceen waagii hore 2011 sanaagna hadalkeeda badaa sanaag afar beelood baa dadku degan bay yiraahdaan marka qabaylada yaryar ee meesha wax ka degan laga soo tago laakiin xaqiiqada marka laga hadlayo saddex reer u baa degan oo haddii alla ka dhigayo waxa weeye aqlabiyadda ummadda meesha ku dhaqana laba beelood waa habar jecel iyo habar yoonis ninka labaad oo dhulka aadka ugu weyn leh waa ninka safiir la yiraahdo wasangeliya meesha fadhiya marka xaqiiqadu waxa weeye meeshaan waa la islu goynaya lugooyaduna ma wanaagsana
inuu ummadda la islu gooyo hadda imika waxay ahayd halka timacad mar haddii dee uu garwaqsay halkaasaan dhigayaa inaanay meeshani maamul noqonayn oo dhulbahantay haddii alla ka dhigaya maamul gaaraho uu leeyahay aanay u suurtogelayn colaadan iyo afxumadan ilaa garaadadii ay ku hadlaayaan inay wax ka beddelaan bay ahayd iskala wax u dhigaano siyaasadda ku raadiyaan oo dadka meesha deggan ee gobonnimo la yimaadaan iyo siday wax wada yeelan kari lahaayeen laakiin imika arrinkan ay meesha wadaa dee waa beel waa gobolkaa mudug oo leelkasta yidhaahdaa annagaa leh gobolkaa mudug ee boqolka qabiil degan yahay oo jifo ka mida jifooyinkaa degan ay yidhaahdaan annagaa laho maamul baan ka samaysanayna marka runtii xaqiiqda asaa taalla meesha ninka la yidhahda jabiilow dee warka timacadde ee haddii alla ka dhigayo dhinacana puntland aynu kaga jirno dhinacana aynu ka duminna kollay idinkaan idiin daynayaa anigu aad baan la yaaba waan ka baxa